siduu sheegay Maxamed waxaan bilaabaneynaa qodobadaas aan isku kinyeeray oo ku mahadsan yihiin saxaafadda inaad gidigeen anagoo degdeg idinku sheegnaa timaadeen taa waxay muujinaysaa sidaad rajo u xushmaynaysaan oo u qadarinaysaan waxa weeye shan qodob kaliya aan rabnaa inaan ka hadalno qodobka koowaad wuxuu ku saabsan yahay shirka ka dhici doona London oo lagu balansan yahay bartamaha bisha soo socda waxaan ka sheegi doonaa wax yar waxa Soomaaliya idil ku gudboon dawlad iyo shacabba inay shirkaas uga tashadaan oo lagu talagalo waxaan kaloo ka hadli doonaa arrimaha ku saabsan abaaraha oo aan xusi doono inay abaaruhu ay sii xoogaysteen ina suuragal tahay inay sii socdaan ilaahay waa fududeyn karaa marka wixii laga yeeli lahaa shacab ahaan iyadana waxaan rabnaa inaan taladeena soo gudbino midda kale waxa weeye oo muhiimka ah Soomaaliya waxaa dul saaran qatar aan la koobi karin oo ay tahay inay shacabku ogaadaan taasaan waxaan rabnaa inaan soo gudbino qatartaas nooca ay tahay iyo siyaabaha loo gaashaaman karo dawlad iyo shacab annagoo ah tan kalena waxaan ka hadli doonaa shirweynaha uu sheegay Maxamed hadda oo ah Google ay fidin doonto rajo oo looga tashan doono waxyaabihii laga yeeli lahaa qatarahaas aan soo sheegi doono aan fasiri doono tan ugu dambeysana waxa weeye doorashada 2020ka dhici doonta iyo ahmiyadda ay leedahay iyo wixii laga yeeli lahaa marka arrimahaas aan ku soo koobi doonaa qodob ayaan uga hadli doonaa sidoo sheegayna wixii su'aalaha qabtaan markaas aad soo gudbin kartaan annagana intii karaankeena waa ka jawaabayna insha Allah waxaan ku bilaabaynaa shirka London shirka London ka dhici doona waxa weeye maaha shirka ugu horeysay horey waxa loo qabtay shirar la mid ah waxa soo qaban qaabisay dawladda aan saaxiibka nahay ee UK Ingiriiska waxyaabo laga faa'iidana waa jiraan laakiin shirkaasi waxa dhici jirtay waagi hore dawladihii hore oo jiray waxay tagi jireen iyagoo aan diyaar ahayn taladeena marka waxa weeye markaan inay ka duwanaato markii hore waxa loo baahan yahay in dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo lagu casuumayo shirkaanayta inay la tagaan policy cad oo muuqda oo aysan noqon waxa loo meeriyo oo loo akhriyo waxa kale loo baahan yahay shirkan inay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka ay ka haystaan aqoon-yahan iyo khubaro Soomaaliya oo wax ka oola sababtoo iyaga fahmi kara waxyaabaha jira ajeedooyinka saddexda oo shirka looga hadli doono iyaga falanqeyn kara marka dawladdu waa u baahan tahay inay ka haysato dad aqoon-yahana oo aan mishaar ka rabin oo aan jaga ka rabin oo isku filan oo raba inay iska waxqabsi ku shaqeeyaan taa waxa weeye mid taladeena ah naga rajo ahaan aan soo gudbinayna dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dawladda Ingiriiska oo ah dawladdan saaxiibnahay oo Soomaaliya arrimaheeda danaynaysa waxaan rabnaa inaan u sheegno in shirkaas ay ku habboon tahay in iyagoo casuumay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada inay saas si la-eg ay casuumaan dad Soomaaliya oo xilkasa aqoon-yahana oo khubaro ah oo taariikhda waddanka yaqaan dadkaasi waxay kaabi doonaan dawladooda ee kama hor imaan doonaan dawladooda natiijada ka soo bixi doontana waxa ka faa'iido doona ummadda Soomaaliyeed laakiin hadii sidii waagi hore dhici jirtay ay dhacdo oo loo yeerto dadaan diyaar ahayn oo policy sidan marka waxay noqon doontaa in wax loo meeriyo wixii loo meeriyana ay la soo noqdaan wax natiijo ka soo bixi doontana ma jirto saas si leeg waxaan kula talinaynaa dawladda UK oo Soomaaliya arrimaheeda danaynaysa in dawlad maamulka Somaliland ay shirka uga yeerto way ka saareen shirkaas mana loo baahan inay ka saaraan maxaa dhacay Somaliland waxay ka tirsan tahay Soomaaliya waxa weeye arrimaheedu wuxuu quseeyaa arrimaha Soomaaliya haddii shirkaas ay ka qayb gali waayaan shacabku waxay u fasiran doonaan in arrimahaas looga dan leeyahay in Soomaalida qaarna la taageero qaarna aan la taageerin waxa kale loo fasiran karaa in la rabo Somaliland in si gaar loo dhaqmo oo ka soo horjeeda midnimada Soomaaliya marka dawladda UK oo fahamsan wax badan waxaan leenahay khaladka ku dhicinina waxaan kaloo dawladda UK u sheegaynaa sababta keenaysa in dad khubaro ah iyo aqoon-yahan u yeerto waxa weeye shirarkii hore oo dhacay waa la socotaan waxa ku hoos nabnaayo ku hoos qarsoonaa heshiisi aad khatar u ah oo runtii Soomaaliya dhibaato u keentay oo ka mid tahay Som Oil waad la socotiin oo hadda inaan falanqeyno aan u baahnayn ceebaha ay leedahay iyo fadeexadda ay leedahay meel walba yaal adduunka marka sidii dadku ay kalsoonidooda u soo noqoto oo ugu kalsoonaadaan shirka waxa loo baahan yahay shir weyn inuu noqdo in dawlad goboleedka loo yeero aqoon-yahanka loo yeero dadka loo yeerayo aqoon-yahanka iyo khubradana waxay noqon doonaan markhaati hadhowtii kuturkutayniya ma jiri doonto wixii meesha ka dhacay waa la sheegi doonaa waxaan ku raacsanahay fartaag aqoon-yahanka fartaag oo maalin dhaweeyta soo jeediyay inay habboon tahay
in shirkaasay la ballaariyo oo ay dad badan oo kala duwan ay ka soo qayb galaan fikirkiisu ka hadlay waana qof Soomaali oo nadiif ah oo aan wadaniyad ku naqaan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa marka anagu haddaan nahay rajo waa ku raacsanahay qodobkaasaan uga haraynaa shirka London xagga abaaraha bilihii la soo dhaafay Soomaaliya waa ogtihiin inay dadku ay aad u gurmadeen oo ay abaaruhu ay wax ay qayb weyn ka qaateen dadku qof walba uu isxilqaamay dadku waxa moodaa inay xaajiseen oo ay qaateen abaarihii inay dhamaadeen abaarihii hadday sii xoogaysteen roobkii la sugayay qaybo qaarkood oo wadanka ah wali kama da'in xilligan waa xilli gaaban inta uu da'i doono ilaahay waxaan ka rajaynaynaa raxmadiisa ilaahay inuu wadanka uu keeno laakiin dadku waxaa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan abaar dheer oo waqti badan qaadan doonta oo dad badan oo aysan hadda saameyn doonto marka yaan la caajisin dadka taasan kula talnaynaa oo aan laga daalin haloo diyaar garoobo gurmad dheer iyo daad gurayn badan waxyaabihii aan laga faa'iiday Soomaalida maalmo dhaweeyay markii abaaruhu jireen waxaa kamid ah waxa soo noqotay midnimadii anigu waxaan shaahid u ahaa dad jooga gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo abaar qabsatay oo lagu daad guraynayo gawaari ka timid xamar la geynayna dhuudo oo ku taal waqooyi bari taas waxay turjumaysaa Soomaalida wax kasto ay sameeyeen nacabka inaan la kala saari karin oo la xuduud loo sameyn karin marka abaaraas Allah naga saaro ummadeena Ilaahay u maciino arinta saddexaad oo muhiimka ah oo aan rabno inaan war-saxaafadeedkan aan kaga hadalno waxa weeye arinta ku saabsan in Soomaaliya lagu soo qaaday duulaan ciidamaad maaha duulaan si kala ah oo loo dan leeyahay in Soomaaliya hantidii kaydka wadanka u ahayd oo taalay ciideena hoostiisa iyo arintii iyo kaydka Soomaaliya oo yaala badaha hoostooda in la xaalufiyo arintaas waxaa ku jira shirkado waxaa ku jira hay'ado waxaa ku jira dawlado waxaana ku jira afraad Soomaaliya intaba waa la yaqaanaa magacoodana waa la yaqaanaa meelaha ka shaqeeyana waa la yaqaanaa waxayna ka faa'iideysanayaan wali inaysan dawladda Soomaaliya xoog lahayn waxaan rabnaa marka arintaas inaan dhowr arrimood ka sheegno marka ugu horeysa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada anagu haddaan isbaahaysiga rajanahay waxaan aaminsanahay Soomaaliya ilaa iyo maanta inaysan dawlad rasmi ah ka jirin taas waa mid aan aaminsanahay sababtan saa u leenahay wax kale maaha waxa weeye wali doorasho Soomaaliya xor ah oo hal qof iyo hal cod Soomaaliya wali kama dhicin meelna kama dhicin maadaama aysan ka dhicinna dawlad mandate haysata oo ku takrifali karta hantida wadanka ma jirto oo saxiixi karta sharciyan adduunka madaxweynaha ahaado ra'iisul wasaaraha ahaado wasiir ahaado kuma takrifali karo marka saa daraadeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka in aysan marnaba haweysan in hantida wadankan uu leeyahay ay iibiyaan kireeyaan ama ay hibeeyaan maxaa yeelay waxa dhacday iibin iyo hibeyn iyo kireyn iibin heshiisyada la galay kireyn dekadaheeni iyo airportadeeni hibeyn dhulal loogu deeqa dawlado inay ka dhigtaan saldhigyo iyo wax la midka intaba waa sharci darro sharciga adduunka muwaafaqsana marka ha ka waantoobaan taas waa mid aan farayno dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada waxaan rabnaa inaan u sheegno oo kale dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada anagu malihiin yaysan ka faa'iideysan wadanka wax yaal laakiin taas waxay leedahay shuruuc loo maro waxa loo baahan yahay haddii ay rabaan inay hanti wadanka taala ee waqti xilli ah ay ka faa'iideystaan iyadoo ummadda u danaynayaan waxaa hor yaala marka ugu horeysa in ay arintaas ay ka faa'iideysanayaan ee soo hordhigaan baarlamaanka oo loo codeeyo waxaa kaloo loo baahan yahay inay afti ka qaadaan shacabka oo iyadan loo codeeyo waxaa kaloo loo baahan yahay inaysan xilliga ka faa'iideysiga aysan ka badnayn xilliga ay dawladdaas jirto haddii 4 sano tahay haddii 3 sano tahay مثلا waxaa dhici karta dawlad goboleed meel joogto inay tiraahdo anagu waxa maanta lagama maarmaan ah inaan aan survey sameeyno waxa naga soo galay mishaharadeena inaan shaqaalaha siino looma diidana laakiin waa inay baarlamaanka ka ansixiyaan waa inay afti shacabka u qaadaan waana inay xilli ku koobnaataa ah inta ay dawladdaas jirto haddii 4 sano tahay 3 sano laakiin heshiisyada Soomaaliya ka dhacay waa heshiisyo abadi ah oo soconaya aawo qofka saxiixay taariikhda meel uga jira ma leh dawladdiisana ma jirto qofkiina ma jiro dhibaatado dhanna waxay u hartay ubadkeena iyo kuwa dhalan doona marka taas waxaan u sheegaynaa inay sharci darro tahay oo ay dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ay ka joogaan midda kale oo muhiimka ah waxa weeye
dowladahaas iyo hay-adahaas iyo afraadaas iyo shirkadahaas u dharrigtay inay hantida waddankan ay xaalufiyaan. waxaan u sheegaynaa haddii la khaldayna inay khaladkaas fahmaan ogaadaan in sharci darro ku taagan yihiin. haddaan la khaldin ay u bareereenna ha ogaadaan soomaaliya inaysan iib ahayn. soomaaliya iib maaha, soomaaliya xalaash ma aha hantida taalla. hadda waxaa la xaalufiyey wax alla wixii geed ahaa oo dul yaalla soomaaliya waqooyi ilaa iyo koonfur geed la harsado waxaa dhici karta in laga waayo meelaha qaarkood. waxaasna waxaa ka dambeeyey shirkada caraba oo dad soomaaliya oon arxan lahayn maal geliyey oo xaalufiyey oo soomaaliya geed alla geed kastoo ku yaalay ka dhiga dhuxul la shito. tiiyoo kalaa la rabaa in loo geysto kaydka soomaaliya ku jira dhulka hoostiisa iyo kaydka yaalla badaha. taa marka waxay u taallaa shacabka iyo baarlamaanka waxay ka yeeli lahaayeen. annaga rajo mowqifkeenna waa kaa. arrinta shirka aan qaban doono oo wada tashiga ah oo soomaaliyeed waxaan uga golleynaa maaha mucaarado. annaga sideeda bannaanba haddaan nahay isbahaysiga rajo mucaarad ma nihin. annagu xisbi ma nihin, NGO-na ma nihin. annagu dawladna ma rabno, kursina ma rabno, maalna ma rabno. haddaan rabno saacaddan xamar aan jiri lahayn oon kuraas raadsan lahayn. annagu waxaan rabnaa inuu waddankan uu hagaago. shirkaasi waxaan jecelahay inaan isugu yeero dhammaan soomaalida waxgaradka ah oo aqoon-yahanka ah oo khibradda haya oo waddankan siduu ahaan jira og qof alla qofkii wax ku oola oo raba inuu waddankan wax u qabto. dadkaasaan waxaan rabnaa inaan isugu yeero oo laga tashado khatarahaas aan idiin soo sheegay oo waddankayna haysta wixii laga yeeli lahaa. waqtiga shirkaasuu dhici doono ee goobta uu ka dhici doono waa iclaamin doonaa, ma naqaan. markaan wada tashi la samayno axsaabta iyo ururada iyo hay-adaha markaasaan ogaan doonaa. laakiin waa daruuri inuu dhaco, waana inay soomaalidu tashataa. maxaa yeele soomaaliya soomaalaa leh. soomaaliya ajnabi ma leh. soomaaliya nin mas-uul ah oo xilli joogaya ma leh. soomaaliya barlamaan ma leh. soomaaliya shacabkaa leh. shacabkana waa inay tashadaan xilli kasta. tan ugu dambaysa waxa weeye qodobka shanaada waa arrinta ku saabsan doorashada 2020 ka dhici doonta. soomaaliya saan idiin sheegay waqtigan xaadirka ah dowlad rasmi ah kama jirto. dowladda hadda jirta oo aan ictiraafsannahay oo aanan mucaaradka ku ahayn iyo dowlad goboleedyada shaqada loo dirsado waa mid keliya inay soomaaliya gaarsiiyaan inay doorasho hal qof iyo hal cod ka dhacdo sanadka 2020. markaas cid alla cidii soo baxda oo madax noqota waxay haysataa full mandate, waxay haysataa mas'uuliyad kaamil ah oo waddankan wixii ay doonaan ay sameyn karaan taban iyagoo soo noqonaya shacabka iyo baarlamaanka. arrinta haddii dib loo dhigo oo ay dhici weyso mar kale Soomaaliya waxa uu bilaaban doontaa 4 sano khasaare ah oo naga go'an cimrigeena. saa awgeed maadaama ay arrintu bilowday oo waqtigii hadda bilowga la taagan yahay waxaan faraynaa mujtamaca adduunka oo daadihinaya geedi socodka siyaasadda Soomaaliya inaysan arrintaa fududaysan oo aysan shirka qaban 4 bilood oo ugu dambaysa abaabulkiisa 4 bilood oo ugu dambaysa markay dawladdu xilligeedu dhamaan doono. taa hadday sameeyaan waa ugu talagaleen Soomaalidu waa inay ogaataan inay Soomaaliya saan ku sii jirto. hadday dhab ka tahay oo lillaahi ka tahay waxa loo baahan yahay inay maanta bilaabaan. waxay ahayd maalintii la magacaabay madaxweyne Farmaajo inay bilaabaan wax walba oo dib u dhac ay sameeyaan waa ula kac. marka saa daraadeed waxaan mujtamaca adduunka u sheegaynaa hadday Soomaaliya arrinteeda dhab idin ka tahay abaabulka doorashooyinka 2020 waa inay bilowdaan. waxaa loo baahan yahay sajilaad, waxaa loo baahan yahay inay goobjoogayaal imaadaan, waxaa loo baahan yahay in tirakoob la sameeyo. waxaas wax lagu soo koobi karo bil iyo 2 iyo 3 iyo sanad maaha. haddaad aragtaan Soomaaliyeed in arrintaas laga aamusan yahay 2 sano ilaa 3 sano soo socota waxaa ku tala gashaan haddana markhaati ka aada waxaa ku tala gashaan in Soomaaliya loogu talagalay in 4 sano kale oo ah hadhiman ha noolaan loo bilaabo. taasaa loogu talagalay. marka saysan taa u dhicin waa ka digaynaa. waxaana leenahay mujtamaca adduunka mas'uuliyaddu saaran tahay iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe inay arrintaas ka kaashadaan oo doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo. intaasaan kusoo koobayaa. wixii su'aalaha qabtaan ay weydiin kartaan.